بسم الله الرحمن الرحيم مدن يا اليمر وين كسو dhawaada barnaamijkeeni talano mar kale inoo soo noqday qaybteena inuu bixinay golaha talan oo mar walba si wax garad la aan ugu gorfeyn doono arrimeena khuseeya waxa aynu kaga hadli doonaa maanta abaaraha inagu soo noqnoqday ee sanadahan ugu dambeeyay aan mar walba hadal hayno maanta waxayna la fadhiyaa si aynu arikan u gorfeyno maxamuud maxamed oo qoraa iyo cilmi baaro Soomaaliyeed iyo Cabdirasaaq maxamed oo isaga laftirkiisu ah qoraa ka soo baxay jaamacadda Hargeysa bulshadeena iyo bulshooyinka caalamkuba waxay mar walba hadal hayaan ama inay soo marta abaaro laakiin waxa lagu kala duwan yahay sida loola dhaqmo iyo sida loogu saamoobo maanta waxaanu ka hadlaynaa waxa keenay in mar walba sanadahan ugu dambeeyay dhimasho iyo dhaawac iyo hanti khasaarta ay noogu soo marta abaaraha iyadoo ay jirto farsamooyin ama aqoon lagula tacaali karo waxaan ku horeynaynaa waxyaabaha dabiiciga ama asaasiga ah ee keena marka hore abaarta inagoo fadhina jawi rooban oo alxamdulillah ilaahay naga soo furtay kuleelkiyo iyo roobanaantii maxamuud maxamed baa inoo furfuri doona oo ka hadli doona waxyaabaha dabiiciga ama waxyaabaha keena abaarta ee asaasiga marka soo mahadsanid aad mahadsantahay martigelinta ugu martigelisay barnaamijkaaga in arrinkan abaartu waa arrin aad u muhiim oo aad inoo saameeyay oo waad arkaysaa jawigii dadkaba inuu bedelay oo xaaladiiba ay noqotay nafsiyadda dadkuba inay isbedesho ay aad uga damqadeen runahaan laakiin waxaan jeclahay in la ogaado in xaaladan abaartu inay ahayd wax soo jireena oo ummado badan iyo taariikh dheer leh tusaale ahaan haddaanu ka hadalno tusaale u soo qaadano sheekadii ama warkii naga soo gaadhay quraanka iyo sheekadii Nabi Yuusuf iyo riyadii boqorkii Masar ku riyooday marka waxay ku fahamsiinaysaa sheekadaasi ama warkaasi in arrinka abaartu aanu ahayn wax soo bootina ama surprise oo kala tiradaf Ingiriisiga waxa muhiim ah in la ogaado sababaha dabiiciga ee keenaya waxaana ka mid ah cimilahan isbedelaya taasi waa mid taasi waxay keenaysaa faafahinta waanu gaari doonaa insha Allah point-ka waxaanu ka hadlaynaa in ay wareegto tahay oo ay ku xidhan tahay badweynta isbedelka qabowga iyo kuleylka biyaha badweynta iyo arrimo haddii aanu si tafsiil ahaan uga hadalno malaha dheeraanaya oo malaxiisa jab ku keeni kara qofkii marka ugu horeysa waxaanu calaamadeynaa inay tahay marka koobaad wax ku xidhan cimilada isbedelaysa oo wareeg la saab tusaale soo qaatay Nabi Yuusuf waxyaabaha kale saameeyay laftirkeeda Cabdirasaaq hadduu isaga laftirkiisu dhinaca inaga dhameystiro aad iyo aad u mahadsan cimilada maanta aan ku jirno saameynta kale iyo waxaan dhihi karaa saameyn badan baa horta dhowr wax ba keen kareen cimiladan abaarta keento إلهي بورت وحنا كنا أبارتها سيد معناها سيد عن إلهي وكنا أبارتها لكن مرة وحياة كلا كم إذا واحد كم إذا راب كي عملة نسبة دلية دبوا صداعي راب كي وقت جديد يجري أي نسبة دلية إنه كلام مركز مالنا إنه يقال لابد يلود راب كأنه صامية مثل ده ساوث ويست مانسوني مثل ده ساوث محل نورث إيست مانسون مركا وقت يدي كل دون بيمادان مركا وقت يدي كل دونا راب كي واحد عين دبوا صامية أمو وسود دقيقة marka waxaas ba keenaa talabaadna waxyaabaha kamid ah jirta banaadamku saameyn ku leeyihiin khaasan bulshadena marka loo eego xaabada dadku ma ogaa laakiin xaabadan geedahan la jaray dabka laga dhigiyo roobku saameynaya cirki saameyn ba ku leedahay iyaga geedu roobku soo jirta u dhisnay dabeecadda ay u tafaacilay waxa soo baxay report علمي باريس wuxuu sheegay wuxuu ku leeyahay meeshu qiiqu ku badan yahay daruurtu ka kala carartaa way ku leeyahay macna qiiqu laftirkiisa yani ma oran karo waa boqolkiiba boqol waa la hubaa warka laakiin waa sax dad baari bay yiri Afrika muxuu roobku ugu siiraanay waxay ku leeyihiin dadkii qashinkii iyo xaabadii iyo dhuxushii ay gubayeen iyo taayiradii waxyaabaha la gubay ayaa keenay ku leeyihiin in daruurtu kala cararto waxa kale ku dari karnaa isbedelka si guud adduunka ugu dhacay inuu waqtiyada kuleylka inta hore ka bato qabowga laftigiisu qabowga inta hore ka bato kuleylku keeni kara in biyuhu si degdeg uga baxaan dhulka waxa la dhahay maartay inta taariikhda
qiyaaso la dhahay cimilada la eegay maarad kuleelka sanadkan ba sanadka adduunka uu kululaa soo maray sanadkan 2016 sanadkii hore markii joogno intaan la eegum baa la 2015 aad u kulul macnaha waxa sheegaysaa in mar walba cimiladu si kordhay taasina waxay keenaysaa saan sheegnay vibration ama inuu mubax degdeg ku dhaca biyaha iyo ceelashii gunta hoose laftirkooda oo iyaga laftirkooda si guraan مستويه ay ku jireen si galo waxa kale oo tilmaami karnaa hadan qaybta ku soo gabagabeynada daahirta dabiiciga waxa kale oo tilmaami karnaa inuu taaliftiga ay saameyn ku leedahay in waqtiyada xataa roobku doo oo roob intii ka badan oo fatahaad keeno iyada laftigeedu saameyn ahaan la dhigantaa abaarta la dhigantaa waxa markaa bay isweydiin karnaa bulshooyinka adduunka mar walba hadday noo keento geographically wax saameyn oo laga simeeyahay ba keena su'aasha imanaysa waxa weeyaan sidaan inagu ugu saamoono iyo bulshooyinka kala ugu saameeyeen farqi weyn ama kala duwanaansho baa u dhaxeeya marka maxaa keeni kara dan maxamed ka horeeyo inay bulshadeeduna mar walba oo in yar oo abaari soo marto aan aad ugu goono hanti iyo dadba bulshooyinka kalena marka qaar laba iloobeen abaari jirto ama aanay mataqaana aanay qorshaha ugu jirin oo ay ka baxeen marka ugu horeysa hadii aan taariikhdeena dib ugu yar noqono waxaan heli karnaa abaarooyin كم قوينا أو كسام وكوقت ديرة. هذا بدر وكل الله وصلنا لسعتي. ممكن واحد نحمل الله أن تضرب بلودي لح بلودي يسقال بلود. يا. ده هذا صح كنت سايسين إن دتك أود دو أيراتي. هذه أنا قلت أود هنتي أود حوله يا أود أي وحكو كيتسدان. كرتي شغل واتا كرتي شغل كذا. تاس ده أسباب واحد لا ده سبب بدون بالله واحد أوران كرتها واحد كم ده. إن رميجو أو تولون كسروا هذي تانا واحد سببي با شاد كان دلك سوق ليه بس كده دروجين نقولنا تولي ده ودروجين سين يقف مركا مش غيسان يو ماشي وبعد كيف عنا كهلا يدوك يو ديه بطنا أي وكلا وكلا شعلانة يا بدين تولي ده والله سو دوك مكتئ أنتي وبقول نف يلن لها أيو لحظة نما تضوات سنة شات ما أبارته وقوي رأي وقوم تقنا قابني دعوه يصدقون كي هراي راعيان مركبة هرو سامو بيه محك هلا يسجل في تركيا داس أشياء أن كنت ما مكرنا إن نجد كل كل دونا أبارت ساميسين كده واحد ليه كان أبارت أبارت وما ضحدهم كل عضة مسلم يقال وقوي كفور أفريقاني يعضاني وما ضحدهم صامرته لكن مشكلة تالا ما حي أبارت مرك الله يجوا حكومة هذا أبارت وكوسي تلاجلسه وسي قرنس أبارت ما واحد بين سوق على صبح ساعات صبح ده اللي الله أبار بتشتغل صح ووقت وبهال صعطة بس قفول وسي قرنس أبارت صعطة وبرسل صعطة marka waxaan ku leeyahay xukuumadaha kala duwan maarta adduunka ayaa ku garanaysan qabaartu masuul la qabaan marka dadka ummadaha ku marka qabaar ku dhacdo ayaa ku garanaysan xukuumadaha si kala faacay mana cidii masuuliyadda haysi si la dhaqmaysa kala duwan kala duwan dalalka galbeedka anagoon magacay sheegin ama dalka oranayna ama dalka dalal badan baa jirimka abaar ka jirto gobollo dhan ayaa abaar saameysay imka ilaa 6-7 sanadood abaar ku jiray waxta ceelashooda gureen laakiin wali waxbay beerayaan wali waa noo soo dhoofinaya cuntadii halka abaarta ka dhacday laga beero marka ku talagalka weeyaan arrintu marka haddaynu ku talagalka laftiisa si dhex galno maxaa ku talagalka laftiisa la taaban karaayo haddii dawlad tahay haddii bulsho tahayba lagu talagali karaa aan farta ku fiiqi karnaa marka ugu horeysa shayga ugu muhiimsan waa in la ogaada in roobku wuxuu dadka u faa'iideeyo haddii la ogaado roobkani dadka wuxuu u faa'iideeyo waxa la ogaan karaa baahidoodu intay tahay ayaa la dabageli karaa iyo haddii roobkaasi dhinmo wixii ka dhinmi lahaa wixii asaasiga ama wixii ugu muhiimsanaa ay ka helayeen marka anagu deed waxaan nahay xoolo dhaqataanu nahay in waxaanu beernaa hadhuudh iyo galley iyo qamandi iyo firidaasaan beernaa marka waxaa muhiim ah in la ogaado يعني شخصيا قف كيبا أنتوا بهذه مثل سومالند أو كله أن 4 مليون دقين تهدانو رهنا قف كي سنة كي وحبوا بهاي 6 كيلو أو في الرداسة مريس كمان دي هارود قال لي 6 كيلو هذه روبكو مركو يرادو أنو شو صار كروينو مثلا أما الله أتنا ما صدنا ما 4 كيلو كارين مان صو صار كي
si looga hortagi lahaa si loogu talagalay in la ogaada marka hore waa in la garto wixii horta meesha looga baahnaa baahi jirtay cunto iyo biyo iyo cabitaan baa ahayd roobkaasi saameyn karaa hadduu meesha ka baxo oo wax soo saarka meesha ka baxo maxaa kale oo iyada laftirkeega lagu talageli karaa haddii aynu sii dhex galno roobka iyo wixii la xidhiidha aynu ku talageli karnaa waxaa jirta horta waxyaabo fudud in la sameyn karo in la garto cimilada cimilada in lasii forecastinga la eego waxaan fal maaha dadka saadaasha hawada in fal laga sheekaynayo fal maaha waxaan waa cilmi dadba waa sii garan dadba inkoo kale marka abaartii dhaweyd soo socotay boorama gobolkeena boorama saamaysay galbeedka waa la garanayay dhowr ilaa malaha bil ka hor waxaan akhrisanaya lagu leeyahay Ethiopia oo sii diyaarsan soo dhaysa leedahay abaarba keyd sii diyaarsansa marka waxaan leeyahay waxa ugu muhiimsan horta in guddi la sameeyo guddiga lagu sameeyo mise kale ama la dagaalanka abaarta ama cid macna forecast ama forecast ka samaysa saadash kaliya aqoonta soo gudbinaysa aqoonta kaliya maaha iyo waxa lagu sameeyaa hadii abaarta dhacdo maxaa la sameeyaa marka wali waxaan ku dhex tari karnaa inay aqoontaasi inaga laftigeega inoogu cusbeen oo mujtamaceenu hore ahaan taariikhaan u leeyahay aqoon ku saabsan cimilada oo Soomaalidu taqaan xilliga roobku daayo xilligan u daayo xilliga ma taqaan ay abaartu socotay xilligan ay socon iyo waxyaabaha saameyn oo dhan hadaynu soo gabagabeeyno aynu isku soo koobno maxaa laga hortagi karaa ama lagu si talageli karaa oo ma taqaan loola dhaqmi karaa ama loo maamuli karaa hadii ay dhacdo laftirkeeda oo aan sheegi karnaa abaarta ku saabsan waxaan oran karaa marka ugu horeysa fikradda ugu horeysa in qof walba fahmo ama ay ka dhacsanaato laga dhaadhabiyo waxa weeyaan dadkan ay aad u saameynaysaa reer miyiga marka anagu waxaan nahay marka ummadeen waa ummad reer miyiga magaalanimadu waa wax nagu boqolkiiba 5 dadka baadi degan waa ka gidina oo ka soo jeednaa miyigaas aan ka soo wada jeednaa ninna ma oran karo samadan ka soo dhacay hatta samad ma laba aabo saddex aabo magaalo ku abtirsan kara uu weeri marka dadkan ay saameyntu helaysa ama saameyntaasi ku dhacaysaa waa anagi dadkeeni waa dadkii aan afkoodi ku hadlaynaa afka inoo sameeyay afkeena aan ku hadlayno waa af reer miyi weeyaan dhaqankeeni waa iyaga marka waa laf dhabarteen anagu wali gaadhin arrinkii dhaqaalaha iyo xoolahan la dhoofinayo marka ugu horeysa sida qofku indhihiisa u ilaashanayo kale waa in reer miyiga loo ilaaliyaa marka taas waa ugu muhiimsan taas maxaa ay keenaysaa in la ogaado tiradoodu intay tahay in xoolahoodu intay yihiin sidee bay u guuraan goormay hayaamaan xagee bay maraan markay hayaamayaan maragtay in loogu talagalo meel loogu kaydiyo baadka ama waxa xoolaha siinayaan biyihii loo sameeyo waxaad oran kartaa stationno ay ka helayaan dawadii xoolaha iyo cuntadoodii haddii ay wax dhacaan ama dawadoodii oo dalkaba dee meelahay marayaan oo dhan waddooyinkay marayaan lano halkanay soo marayaan waxaan u baahan waa ka markay dadku geedi yihiin meel walba iskama maraan meelaha jirta taariikhiga oo ay mari jireen haddaynu soo koobno waxaan odhan karnaa abaartu maaha wax nagu cusub maahana wax dhammaanayana ma wax soo noqnoqonaya marka in arrimaha aynu taabanay arrimo ka badan oo u baahan cilmi baaris iyo aqoon badan lagula dhaqmo oon kusoo boodada iyo mataqaanaa aan lagula dhaqmin maanta intaasaan kusoo gabagabeynaynaa golihii talan oo golihii koowaad ee aan fadhiisano ka mid ahaa qaybaha kale barnaamijkeena aynu la socon doonaa fadhigan aynu maanta aynu duubayno aad baad mahadsantiin daawadayaal waxaan aad u mahadsan maxamuud iyo cabdisaaq oo nagala soo qayb galay oo juhdi ku bixiyeen inta laftirkeeda inoo soo gudbiyaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh